maayirka degmada Sheekh Ibraahim Cabdullaahi Cabsiye ayaa kulan warbaahineedu habeenkii caawaha ku qabtay degmada Sheekh waxa uu kaga xog warramay raashin mucaawimada oo ay soo dirtay shirkadda DB Wall oo ay dib u celiyeen iyo sababaha ay u celiyeen. Maayirka oo arrintaasi ka warramaya ayaa waxa uu yiri waxaan u qabtay caawa u duubaya hadalkan yar oo ku saabsan yahay raashin saaka degmada la keenay laga keenay gobolka oo inamadii wada ay yiraahdeen DB Wall baawd ayaa soo bixisay wala saabkan soo dhiibay raashinka waanu celinay tibanu celinay ana cadaynayna inuu tibu celinay waayo mas'uuliyadina saareed ba ka hor yimid way diideen inamadii raashinka siday waxay yiraahdeen magaalada la isku soo kiciyay magaalada isku soo kiciyay doo keenay baan ku wixii ku filan lahaa magaalada sababta saddexdaas awoodood baan gaariga tibu soo celinay mana yeelayno kan iyo mid kale toona ma yeelayno haddaan sida cadaaladda waafaqsan aan loo soo bixin barasaabka waxaanu leenahay markaad wax qaybinayso ama anaga noo yeedh ama haddaad adigu anaga naga wakiil noqonayso sida cadaaladdu tahay nooga wakiil noqo oo yaanay noqonin iska soo diruun magaciyaal ma doonayno dadkaygana magaciyaal qaadan maayaan waxaanaanu qaadanayn abaartii oo dhan baanu soo hadlayna dadka biyaha loo keeno dadku way gaajoonayaan maanta roobku da-ay 240 qoys Sheekh Bas ayaan dhex dhigayaa yeeli mayno qaadan mayno mar dambena ma yeelayno cidda ay khusaysaaba halkaa ka maqasho warkayga waxaan leeyahay mas'uuliyadda yaan siday tahay ha loo maro annagu ma garayno ciidanka noo shaqeynay wax ka qaalisan inamada raashinka sidee markaan noo siiya ciidanka way diideen ciidanku waa ayay yidhaahdeen ciidanku waa ayay nin kale markaan raashima kala wareegi maayo isaga ay qanal ku shaqeynayo annagu dee DB Wall shaqaale uma nihin dad baan mas'uuliyiin dowladeed baan nahay dad baan ka mas'uul nahay deegaan baan ka mas'uul nahay ma qaadanayno wixii aan munaasibkayga ahayn. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.